بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هدي الله قدر إن شاء الله maanta oo ay bishii tahay bishii afraad 17-keedii 2022 kulankeena maanta waxaan doonaynaa in ku wadaagno xog ama warbixin kooban oo ku saabsan qaabka ugu macquulsan ee ardaydu isugu diyaarin karaan imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ama form 4 maadaama muddo yar aad u kooban ay naga xigto marka haddii alla qadaray insha Allah maanta waxaan doonaynaa inaan ka wada hadalno dhowr qodob oo aad u kooban qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa maadooyinka ay ku galisaan imtixaanka waa imisa maado sidee bay soo kala horeeyaan qodobka labaadna wuxuu noqonayaa manhajka aynu dhigano maadooyinka saamiga su'aaluhu kalaasyada intee bay kala noqonayaan qodobka saddexaad ee aan doonayna inaan ka hadalno wuxuu noqonayaa format of the paper nashqada imtixaanka waraaquhu ay noqonayaan qodobka afraadna wuxuu noqon doonaa main weaknesses meelaha ugu daran ee ardaydu caqabadaha ay kala kulmeen sanadadii hore ee imtixaanka shahaadiga ay u soo fadhiisteen oo aynu qodob isku istaagi doono dhowr qodob baa ugu muhiimsan oo ay mudan tahay in la idin la wadaago si idinkuna aad uga badbaadaan amaba aad xal ugu heshaan caqabadaha faraha badan leh ee ardaydii inagu horreysay ay kala kulmeen imtixaanadii shahaadiga ay galayeen number 1 waxa kamid ah time-ka number 2 waxa kamid ah qaab su'aaleedka marka ardayda la weydiiyo qaabka ay uga jawaabaan number 3 waxa kamid ah qishka iyo khiyaamada ardaydu ay samayso oo caqabadaha ugu waaweyn number 4 waxaan ku soo gabagabeynaynaa isticmaalka luqadda Englishka jawaabaha ardaydu ay bixinayaan iyo hab qoraalka fartooda qodobada aan doonayna inaan waxoogaa warbixina iska siinaa intaas bay maanta ku saabsanaanayaan marka ugu horeysa waxa aad iyo aad xusid u mudan sanadkan wuxuu noqonayaa sanadkii 22aad I think inuu yahay 22aad iyo 23aad labada midkood hore loo soo gali jiray imtixaanka shahaadiga ee form 4 waxa aad caan u ah oo la isla arkaa amaba meelo badan ka dhacda arday highly educated students arday aad u dadaasha oo ku fiican maadooyinka ay iskuulka ku dhigtaan isla markaana soo baasay imtixaanihii bilaha iyo dugsiga imtixaanihii sanadlaha ahaa kii midtermka ahaa intaba ayaa waxa dhacda sidoo kalena aad u akhriya buugaagtooda qaarkood xitaa ay qaybeen su'aalaha iyo jawaabaha buugaagta ku jira ayaa wax dhacda markay galaan imtixaanka shahaadiga inaanay keenan dhibco aad u fiican amaba qaarkood ay noqdaan qaar ku guul daraystay imtixaanka shahaadiga su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa sababay waxyaabaha aynu sheegay bal qodob baynu isku dul istaagi doonaa number 1 ardayda caqabadaha ugu waaweyn ee kor yimaada marka ay imtixaanka galayaan waxyaabaha ay kula kulmaan in doonayna inaynu warbixinta ka bixino ayaabaynu isku arki doonaa maadooyinka aynu ku galayno imtixaankuna waa 10keenii maado aynu dhiganaynay oo 2 min 2 yihiin 12 maado marka English paper 1 iyo English paper 2 Maths paper 1 iyo Maths paper 2 intaas bay noqonayaan marka la isku geeyo waxay noqonayaan 12 waxayna u galaynaa sabti ilaa iyo khamiis waa 6 cisho min 2 maado ayaabuu noqonaya dhinaca markay noqoto saamiga su'aaluhu ay ka imanayaan imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ama form 4ka marka hore reportka ama warbixinta xafiiska imtixaanaadka ka soo baxday waxa ku qornayd 50% waa form 4 30% waa form 3 10% waa form 2 10% waa form 1 hayeeshee waxa warbixinta qoraalka ka dambeysay fariin ama warbixin kale oo xafiiska gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku uu ardayda la wadaagay oo uu sheegay in 80% imtixaanku uu ka imanayaan su'aaluhu buugaagta form 4ka ama sanadkan 12aad ee ugu dambeeyay dugsiga sare 20% kalena inta kale ay noqonayso marka saamiga su'aaluhu waxay noqonayaan 80% waa form 4 20% waa kalaasadii kale formatka waraaqaha oo kale waxa dhacda imtixaanka aynu galaynaa kaliya ma aha textbookska su'aalaha lagama diyaariyo textbookska I do mean buugaagtana wax ka dhigataan ee students book la yiraahdo sidoo kale imtixaanku wuxuu ka iman karaa syllabus
marka extra information ama sharaxaadaha dheeraadka ay macallimiintu bixiyaan qayb ka mid ah imtixaanka ayay noqon karaan ardayduna waa inay markaa qaybta xoogga saaraan ama ay aad uga fiirsadaan xogta dheeraadka ay macallimiintu la wadaagaan markay casharada bixinayaan imtixaankana waxaa la gelayaa maado walba 2 saac iyo 10 minut ayaynu haysanaa wata koowaad waxaa la gelayaa 8 ilaa 10 iyo 10 talabaadna 10 iyo 50 ilaa 1 oo buuraa haddaba waxaan doonaynaa imika inaan idila wadaago main weaknesseska ama caqabadaha ugu waaweyn ee ardaydu ay la kulmaan xilliga ay imtixaanka gelayaan horena ay la soo kulmeen xogtana waxaa soo ururiyey dad aad u badan oo kala duwan oo soo indheeyay soo baaray dad ka dhageystay marka caqabadahan dhowrka ah oo waxyaabaha ugu badan ee ardayda u horseeda inay qaarkood dhacaan ama ay dhibco aad u hooseeya keenaan imtixaanka shahaadiga caqabadaha aynu sheegayno waxaa xogtan iyo talooyinka la socdaa aynu ku wadaagi doonaa oo laga soo ururiyey meelo kala duwan number 1 qolada imtixaanka dejisaa haddii la waraysto imika waxay sheegayaan waxyaabaha ay la kulmaan marka imtixaanka diyaarinayaan markeriska ama qolada imtixaanka saxdaa marka ay saxaan haddii la waraysto waxay sheegayaan caqabado iyo waxyaaba ay la kulmeen oo marka imtixaanka la saxayo ay arkaan sidoo kale invigilatorska oo qolada imtixaanka ilaalisa ilaaliyaasha imtixaanka laftirkooda waxay inta ugu badan ka warbixiyaan dhibaatooyinka ay ardaydu la kulanta markay ku jiraan imtixaanka haddaba waxaan wadaagi doonaa dhibaatooyinka faraha badan leh ay dadka kala duwan soo ururiyeen isla markaa dhib kasta waxaan wadaagi doonaa xogteeda taladeeda iyo wixii munaasib aad kaga hortegi karto dhibkaas number 1 dhibta koowaad horta waxa weeyaan ay ardaydu ay ka cawdaan ama caqabada ugu weyn ee arday badan ka hor timaada marka imtixaanka shahaadiga gelayaan waa waqtiga waayo waxay sheegaan ardaydu inta ugu badan inay la kulmaan wax loo yaqaano time pressure waqtiga ayaa cadaadis ku noqda arday badanna kama jawaabaan su'aalo fara badan sababtoo ah waqtiga ay kaga shaqayn lahaayeen oo aad u yar ayaabay sheegaan ama ay ku cawdaan waxaanay xaqiijiyaan marar badan su'aalo badan inay u waayeen waqti ku filan oo ay kaga shaqayn lahaayeen haddaba waxa weeyaan dee markan aan leenahay time pressure baa jira waqtigu horta aad buu inoogu filan yahay waa 2 saac iyo 10 daqiiqo waxaa jira meesha caqabada ardaygu la kulmo waqtigiisa ayaan u qorshaysnayn haddii waqtiga imtixaanka aad gelaysa aad qorshayso oo qaab macquul ah aad u qorshayso oo aad qiimayso su'aal kasta inta minuteed ka jawaabayso waxaa hubaala caqabada inay soo jeedinayso haddaba iyada xal maxaan u haynaa caqabada waqtiga ee arday badan hore uga cabatay ee ay sheegeen waxyaabaha dhibcahooda hoos u riday inay tahay waqti ku filan oo aanay u helin jawaabihii su'aalihii la weydiiyey ay kaga jawaabi lahaayeen 3 xal ayaynu haynaa 3 xal intaan imtixaanka la gaarin arday kasta waa inuu isku dayaa inuu xalalka sida ugu macquulsan ee uu kaga badbaadi lahaa dhowtoole inuu falowgad qabto xalka koowaad waxa weeyaan waa practicing doing timed exam intaynan imtixaanka gaarinba ka hor arday kasta waa inuu ku sii celceliyaa oo uu bartaa sidii uu su'aalaha uga jawaabi lahaa waqti ku filan isagoo qabsanaya tusaale ahaan imtixaanka iskuulka lagaa qaado saacad ku gal saacadna ku dhamay waqti qabso waxaad sheegtaa su'aal kasta inta minuteed ka jawaabi marka talada ugu macquulsanayna waxa weeyaan arday kasta ha isku dayo intaan imtixaanka shahaadiga la gaarin inta minute ee uu su'aal kasta kaga jawaabi karo inuu aqoon u leeyahay oo yaqaan xalka labaadna wuxuu noqonayaa don't spend too much time part 1 badanaa imtixaanada qaybta koowaad way ka fududahay qaybta labaad qaybta koowaad arday kasta waa inaan waqti aad u badan ku bixin sababta oo ah qaybta koowaad way ka fududahay qaybaha kale imtixaanka waayo sectionka koowaad badanaa maadooyinka qaar goobo geli bay noqotaa multiple choice way ka fududan yihiin su'aalaha structure-ka soo daad su'aal yar oo 2 dhibcood ahayd isla markaana goobo geliya oo doorasho ah inaad waqti badan ku qaadato iyadoo ay ku taalo su'aal structure oo aad ka jawaabi lahayd oo 6 dhibcooda ama 4 dhibcooda inaad waqti yar siisataa oo hadhow tolo waqtigu kaa dhaco waa caqabad ku horseedi karta inaanad imtixaanka dhibco fiican keenin sidaa awgeed waxaan ardayda kugula talinayaa inaad caqabada waqtiga aad ka hortagto oo aad ku xisaabtanto sidaa waqtiga ay uga faa'iideysan lahayd xilligaad imtixaanka ku jirto xalka saddexaadina waxa weeyaan page-ka hore instruction-ka eeg waxaad isweydiisaa how many marks are given in each question
su'aalaha mid kasta markiskeedu ku dul qoran yahay su'aalaha dhibcaha badan lagu bixinayo waa inaad waqti macquul ah ku bixiso su'aalaha dhibcaha yar lagu bixinayna waa inaad waqti badan ku bixin ka fikir laakiin yaanay much time ka qaadanin halka ugu macquulsan waqtiga oo hayno waxa weeyaan reportka ama warbixinta xafiiska imtixaanaadka ka soo baxay ku qoran waa saddexda okay caqabada labaad baynu gelaynaa iyaduna qaybta ka ah inay ardaydu markay imtixaanka shahaadiga galayaan ay dhibcaha hoose keenaan ama qaarkood ay u dhacaan oo noqonaysa answer the questions and follow instructions arday aad u badan waxay ku dhacaan inay raacaan instructionka ama tilmaanta la siiyey ee looga baahnaa su'aasha la weydiiyey uga jawaab ardayda qaarkood tilmaantii la siiyey qaabkii la yidhi uga jawaab ugama jawaabaan si aan sidii ahayn bay uga jawaabaan taasina waxay horseedaysaa ama ay sabab u noqonaysaa ardaygu inaanu keenan dhibco fiican amaba inuu dhaco ayaabay qayb ka noqon kartaa waxa weeyaan guuldarradiisa iyada haddaba maxayn xal u haynaa iyadana xal waxaynu haynaa 4 qodob qodobka koowaad waxa weeyaan arday kasta markuu su'aasha ka jawaabayo ka hor intaanu jawaabta bilaabin waa inuu qorsheeyaa marka waxaa la dhahdaa think about ka fikir ka hor inta aanad ka jawaabin su'aalaha waa think about then plan your answer marka hore waad fikiraysaa markaad fikirtay kadib qorshee qaabka ugu macquulsan ee aad su'aashan lagu weydiiyey uga jawaabtaa halka ugu muhiimsan ee munaasibka oo ah inuu ardaygu tilmaamihii la siiyey ee lagu yidhi su'aashan uga jawaabo raaci karo waxaa kow ka ah arday kasta inuu ka fikiro ka hor intaanu jawaabta bilaabin kadib marka aad fikirto qorshee qaabka ugu macquulsan ee su'aashan lagu weydiiyey ee aad uga jawaabi lahayd halka labaadeen haynaana waxa weeyaan arday kasta waxaan kula talinaynaa oo aan in badan ugu celcelinaynaa isla markaana reportkana ku qoran dardaaran aad u weyna ah inta aanad bilaabin ka jawaabidda su'aalaha si taxadir leh oo akhri tilmaamaha ku qoran page-ka koowaad ee imtixaanka read the instruction carefully before you start answering questions that's a good advice if you follow I am sure inaad noqon doonto qof qaabkii la rabay su'aasha in looga jawaabo qof uga jawaabo halka saddexaad ee aynu hayno ama aan doonayno in la wadaagno waxa weeyaan no extra papers allowed warqado dheeraada imtixaanka shahaadiga looma ogola ardayda qaar baa su'aalaha markay ka jawaabayaan jawaabta waxay jecel yihiin inay ku qoraan meel ka baxsan meeshii loogu talagalay haddii ay sidaasi dhacdo tusaalehaan oo kale page-ka labaad ee paper kasta ama maado walba waxaa ku qoran ref page dhakada waxaa kaga qoran it will not be marked lama saxayo haddana caqabadaha ugu badan ee ardaydu ay la kulmaan waxaa ka mid ah ardayda qaar baa moodo page-ka in la saxayo jawaabtii meeshii loogu talagalay markuu kaga shaqayn kari waayo ama ay ka buuxsanto ama tusaalehaan oo kale uu baabi'iyo ayaa wuxuu isku dayay page-kaa bannaan inuu jawaabtii ku haddii ay sidaasi dhacdo adiga ayaa sababa inaad dhibcaha hoose keento ama aad guul daraysato si aanay taasi kugu dhicin halka ugu macquulsan waxa weeyaan imtixaanka shahaadiga lama ogola ardaygu inuu soo qaato ama uu jawaabaha ku qoro warqado ka baxsan warqadahan uu haysto talada ugu dambaysaana waxa weeyaan arday kasta ha isku dayo inuu imika kasii shaqaysto imtixaanadii hore waayo wuxuu baranayaa instructionada iyo tilmaamaha iyo qaabka macquulka ah ee su'aal kasta looga jawaabi karo okay taa waxay noogu xigto oo kale oo iyaduna noqonaysa caqabada saddexaad ee ardaydu aad iyo aad uga cawdaan waa qishka cheating horta waa wax aad iyo aad marka ugu horeysana taladeedu kooda wax weeyaan don't attempt yaanu arday kasta oo gelaya imtixaanka shahaadiga maadaama uu yahay wax go'aaminaya mustaqbalkiisa waxbarasho iyo mustaqbalkiisa shaqaba inaanu ku talagelin inuu wax qiyaameeyo ama uu qisho waayo qishku wuxuu noqonayaa khiyaamo aad kula kacday naftaada qarankaaga qoyskiinii macallimiintaadii cid walba khiyaamo aad kula kacday buu noqonaya arrin aan dhiirigelinayna maaha markaan iskuullada joognayn imtixaanada gelaynina waad aragtay macallin kastaa marka uu ku ilaalinayo wuxuu isku dayaa inuu ka ilaaliyo ardaygu inuu sameeyo wax khiyaamaha imikana maadaama mid nationala oo wayr oo kii aynu geli jirnay ka ballaaran yahay waxaan ardayda kula dardaarmaynaa inaanay isku dayin inay sameeyaan wax qish lacalla ka warrama haddii aad samayso qish if you cheat you may be caught tan iyo digrii qofka hadduu qish ama khiyaamo sameeyo ardaydu waa la qaban karaa
su-aasha sidiin saxayn sidee la idin qaban karaa aad buu fududaho ardayga qish sameeya laba hab baa lagu qaban karaa number 1 mid waxa weeyaan the invigilator my see laga yaabaa ilaaliyaha imtixaanku inuu ku arko adigoo wax khiyaamay haddii ay sidaas dhacdana just uu ku report garaynaya warbixin buu kaa gudbinayaa row numberkaaga warqadaha loo qaybiyaa ay ilaaliyaasha imtixaanadu hayaana way ku qoran tahay wax qish haddii uu dhacay qor row numberka qishka ama khiyaamada sameeyay soo daad waa lagu qaban karaa adigu haddaad aaminsantahay silada laguma qaban karo macallinkan ku ilaalinaya kuma garanayo oo dad wax taas iska dhaadhicisa si fudud baa lagu qaban karaa waayo miis kaste waxaa ku qoran ardayga row numberkiisa haddii la helana si fudud baa ardayga magaciisa loo heli karaa marka taasi waa hab ka mid ah hababka ardayda khiyaamada doonaya inay sameeyaan lagu ogaan karo inay khiyaamo sameeyeen waana arrin loo baahay inaad aad uga feejigaataan isla markaana aad ka taxadirtaan waxa weeyaan habka labaad ee lagu qaban karaana waxa weeyaan during marking xilliga la saxayo laftirkeeda macallimiinta maarkarada imtixaanka saxaya way dareemi karaan ama way aqoonsan karaan in meeshan khiyaamo ka dhacday oo sidee baa lagu aqoonsan karaa waa duplicate another student's answer haddii ka waran jawaabtu ardaygani bixiyey iyo kakakay kuu bixiyey ay isku mid noqdaan dabcan jawaabo isku mida baa laydinka rabaa laakiin ha yeeshee haddana ardaydu marka aanay wax khiyaamaha samaynin jawaabahoodu iyagoo isku jawaab sheegay ayaa haddana ha dhacday inay yaro kala duwanaadaan qaabkay u qorayaan ma laga yaabaa ama ma dhici kartaa ka waran galaas dhan haddii hal su-aalo wada qaldaan hal su-aalo wada saxaan tusaalaan oo kale imika ta koowaad oo goobo geli ahayd ayaabaad eeda wada goobo geliya eeday dhammaantood wada baabiinayaan haddana siday wada goobo gelin taas waa dareemaysa waay xarafkanna loo wada baabiiyey xarafkanna loo wada doortay markii dambe markaa horta waxaa jirtaa labadaa haba ardayga waa lagu qaban karaa qishkuna siyaabo kala duwan buu u dhici karaa siyaabaha kala duwan u dhici karaa waxaa ka mid ah copy another student inuu arday kale ka koofiyeeyo oo ay kala qortaan laba arday sidoo kale inay ardayda qaar textbookska ama bugaagta ay ka qortaan ama ay si toosa waraaqa u isticmaalaan qaarkood inay jirka ku qortaan ama dharka ay xidhan yihiin qaarkood waxaa dhacda inay mobile isticmaalaan qaarkood waxaa dhacda markay doonayaan inay qishaan ama ay khiyaameeyaan inay miisaanta kala bedbedelaan oo iswadaariyaan qishka ugu weynay isaguna dembiga ah ee caddayn karaa inay ardaydani wax khiyaameeyeen waxaa ka mid ah inay laba arday isku beddelaan waraaqa taasoo kale iyadu dee aad bay u fudaanaysaa in la dareemo waayo qoraalka qofku hal mid buu noqonaya ma kala duwanaanayso haddaba iyada maxaynu talo haynaa ama xal ardaygu si uu uga badbaado inuu khiyaamo sameeyo xal waxaynu haynaa dhowr qodob qodobka koowaad waxa weeyaan horta waa one desk one student waa hal arday iyo hal kursi 20 arday baa galaas kasta ku gelaya ardaygii diyaar u ahaa inuu wax khiyaameeyo oo miisaanta isweydaariyaa miis la isweydaarinaya ma jirto miis walba waxaa ku qoran oo nambarka qofka soo daad keligaa baana fadhiisanaya meel kale u wareejisay meel kale u qaadaana ma jirayso ama ma suurtoobeyso marka waxa weeyaan horta don't take any books and paper imtixaanka shahaadiga markaa gelaysaan insha allahu dhowaan bilaami doonaa waa inaanu ardayna ku talagelin inuu wax buugaaga qaato ama wax waraaqa aanu mobilana la gelin xafiiska imtixaan qolka imtixaanka lagu gelin classroomka inaan intaaba midnaba la gelin ayaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayna si aanad sabab ugu noqon inaad dhibco hoose keento ama aad gul darayso qodobka labaadna waxa weeyaan marka galaaska lagu jiro imtixaanka laga shaqaynayo waa inaanu ardayna xanshaasha ama guux waa inaanu sameeyo waayo hadalka iyo guuxu waa qayb ka mid ah qofku inuu doonayo inuu khiyaamo ku kaco talada saddexaadna waxa weeyaan oo dardaaran aad u culus ah oo aan uga digayo fariina aan uga dhigayo dhalinyarada diyaarka u ah inay galaan imtixaanka ay ku dhisayaan mustaqbalkooda horena ugu sii wadayaan geedigooda waxbarasho waa inaanad isku dayin inaad invigilatorka oo ilaaliyaha imtixaanka ama supervisorka waxa weeyaan inaad afxumo ama hadal xumo idin dhexda waayo ma wanaagsana qofka mustaqbalkaaga iyo aayahaaga ka talinaya kuu adeegaya kuu shaqaynaya qaranka u shaqaynaya inaan u mahadnaqna mooyaane inaynu hanjabaad iyo cay iyo afxumo inaynu ugu darno wax munaasiba maaha waxa weeyaan waxa ugu munaasibsan ee aan isleeyahay khiyaamada ardaydu ay sameeyaan xilliyada qaar ama marka imtixaanada la gelayo waa laga horti karaa oo wacyigelin aad u badan maamulka iyo macallimiinta kolley intaa wacyigelin way u jiraan ardaydana waxaan leenahay wacyigelinta qaar wax ku qaatan noqda
hana isku dayna inaad wax qiyaamaha haba yaraato inaad samaysaan ama ha ku kacdaan qodobka ugu dambeeya ee aan doonayo inaan aadka idinla wadaagaana waxa weeyaan arday aad u badani marka ay imtixaanka gelayaan waxay ku guuldaraystaan inay ka shaqeeyaan waa handwriting-ka hab qoraalka ayaa arday aad u badan sabab u noqda inay ku dhacaan imtixaankoodii ama ay dhibco aad u hooseeya keenaan hab qoraalka aan sheegayaa haddaba waa kee hab qoraalka aan sheegayaa wuxuu noqonayaa ardaygu marka uu ka jawaabayo su-aasha aad ka jawaabayso marka aad qorayso haddii qoraalkaagu uu noqdo difficult or impossible to understand the marker mid aad u adag oo aan waxba ka fahmin qofka saxayaa waxay keeni kartaa haddii uu fahmi waayo macallinka saxaya imtixaankaagu waxaan aad qortay haddii wax la fahmayo uu noqon waayo jawaabahaaguna ay noqdaan waxaa dhici karta no marks are given inaan wax dhibcaa lagugu siin baa dhici karta haddaba iyada fartu dee horta wax loo dhasho maaha dadka qaar baa aaminsan in farta lagu dhasho xaqiiqadu waxay tahay farta waa la baran karaa waqti fiicanna waa haysataa deer aad u kooban baad fartaada ku horumarin kartaa iyada talada inuu haynaa waxa weeyaan arday kasta make sure your handwriting is legible iska hubi su'aalaha markaad ka jawaabaysa jawaabta aad qorayso inay noqoto legible maxaan u jeednaa easy to write easy to read qaab aad u fudud u qor si fudud loo akhrin karo lacalla hadday dhacdo in fartaadu wax isku dhex daadsan oo khad madow intaas isticmaasho isku wada dhex daatay hadduu doono qalin beensal isticmaasho baaba'ay waxay horseedi kartaa inaan wax dhibcaa lagugu siinin haddii la akhrin kariyo markaasi aanay taasi u dhicinba waxaa aad iyo aad munaasib u ah ardayda qaar ba waxay isticmaalaan qalinkan la yidhaahdo qalin markarka maxaa la dhahaa wax lagu baabi'iyo caddaanka kaa laftirkiisu ma wanaagsana marka hore waa inaad ka taxadirto imika goobogelidoo kale qaladaadka ardaydu ay galaan waxaa ka mid ah ardaygii su-aal buu goobogelinayaa mid kale u xasuusanaya inay jawaabtu sax ku tahay tii kale u goobogelinayaa dabeetana double answer wuxuu ku ilaabayaa tii hore uu goobogeliyo inuu baabigu ilaabaya waa qaladaadkay ardaydu galaan ama waxyaabaha keena inay ardaydu dhibcaha hoose keenaan ardaydii baa markay ka shaqaynayaan baa wuxuu samaynayaa su-aashuu ka jawaabayay buu laba jawaabood sameynaya isagoo intuu mid markii hore goobogeliyo haddana mid kale tii hore inaad baabiisa lagaga baahan isku tallaabun mari haddii marka a b c d lagu qoro eedaad ka guurtay eeda isku tallaab mari waxba qalin cad iyo baabiin iyo bidmadu badan lagagama baahna laakiin su-aalaha structureka laga jawaabayo waxa muhiim inaad aad uga taxadirto waayo spaceka aad haysato mooyaane meel kale inaad jawaabta ku qortaa mid muhiima ama munaasiba ma aha arday kasta waa inuu ka taxadiraa isla markaana uu ogaadaa ugu dambayn waxaan doonayaa inaan aad idin xasuusiyo war imtixaanka shahaadiga ama national examination Somaliland national examination ha u arkina wax laydinku ciqaabay waa inaad u aragtaan inuu yahay opportunity fursad aad ku soo bandhigayso wixii aad baranaysay waxaad ka xasuusato sidoo kale ha u tixgelinina inuu yahay imtixaanka shahaadiga ciqaab laakiin xaqiiqadu waxay tahay waa wax la doonayo in lagu ogaado heerkiina fahan iyo inaad maskaxda ku haysaan inuu yahay wax lagu qiimeynayo wixii aad muddada dheer soo baranaysay ee aadka u badnayd so that arday kasta oo maanta fursaddan helay jaanisna ilaahay u siiyey inuu fursaddan sanadlaha ah ee sanad kasta hal mar ka qabsoonta dalka guud ahaantii hadduu ilaahay ku soo gaadhsiiyey dad badan oo jaaniska alla baa jire inaad allah subxaana wa tacaala u mahad celiso isla markaana muddada yara kooban ee ku dhiman qaab aad u wanaagsan aad uga baxdo ayaabaa iyaduna muhiima oo xusid mudan ugu dambayn guntii iyo gunaanadkii iyo gabagabadii imtixaanka shahaadigu waxa weeyaan waa wax go'aaminaya mustaqbalkaaga waxbarasho oo jaamacadaha marka aad doonaysaa inaad gashaan waxay ku xidhan tahay inaad imtixaankii shahaadiga soo baastay ama soo gudbay sidoo kale wuxuu go'aaminayaa mustaqbalkaaga shaqo waayo dadka levelkan dhaafa badanaa waxay noqdaan dad aqoon iyo qalin ku shaqaysta oo xirfado barta waxa weeyaan noocaas bay noqdaan hadalkayga ugu dambeeyaan idin leeyahay waxa weeyaan arday kasta guntiga dhiisha iskaga dhigo muddada yare kooban ay noo hadhay read more see more wax badan akhri si aad wax badan u ogaato wax badan ka shaqee si aad hadhow toole si fudud uga shaqeyso aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam